kusoo dhawaada Journey to Fame wadadii caanimada ee qodxaha lahayd qaybteedii saddexaad anoo u jiifa qorqor jacayl ku xiray sarsar tuy galiyay dardar ayuu ii tuuray heeskaas waa heeskii anigu aan kusoo caan baxay laakiin iyadoo muusiga YouTube-kayga ma soo gelin karo sababtoo ah copyright-keeda ma lihi copyright-keeda waxaa iska leh oo copy garaystay rights-ki heeskii aan anigu lahaa rights-keeda waxaa iska leh Liibaan Jaamac maanta YouTube-kiisay ku jirtaa anigu $1 kamaan samayn heeskaa 13 milyan baa daawaday waxaa heeskaas aan ku duubay Toronto waxa iga duubay Liibaan Jaamac waxa ii tumay Ariid Caadil Cabdalla Camud hatta finaanada hooyo oo aan heeska ku xayisiinayo DJ Swear baa iskale 13 milyan baa daawaday waxay ku jirtaa 6 sano iyo bar $1 asaguna igu muusin xayisiintii aan u sameeyay hooyo $1 igu muusin DJ Swearow hadda way ku kala kacday alxamdulilaahi rabbil caalamiin shakhsi aad wanaagsan baa tahay oo wanaagsan oo sharaf leh oo karaamo leh laakiin aniga adigu hadda way haysanaa waxaan isku haysanaa maadaama ay ku kala kacday waxaan maqlay Sacdiyo dhameystiran gabaru dhalay ninkaas kale dahabshiil ina guursatay oo ay ku kala kacday oo lacagta adduunka samaysay oo maanta aad shidan tahay oo real estate aad leedahay Hargeysa oo dhan dhulalkeeda aad kala gadid niyow lacagteedii ii soo dir DJ Swearow 13 milyan dharka hooyo ninka xayisiiyay eed ku bilowday waa aniga kala kiciyay lacagteedii ii soo dir cid walba iska daba tagaynaa DJ Swearow kaliya kuma haysto Liibaan Jaamac baa soo haray Liibaan Jaamac iska daa heeska barbar in aan halkan soo gelin karin anigu hadda oo copyright la igu qabsanayo haddaan soo geliyo halkan haddaan dhaho hadeer qayb yar haddaan intaan soo qaato halkan soo saaro copyright baa la igu qabsanayaa maba soo gelin kara anaan iskale Liibaan Jaamac heeskaas markuu iga duubay lacag buu aniga iga sii qaada waxyaabaha haysta fanaaniinta aysan hadli karin ma la hadli karo qof hadli kara ma leh qof xaqiisa raadsan kara ma leh fanaantu way wada taagan tahay qof kasta waa la taagay xaqiisa ma raadsan karo waxba kama hadli karo ma dhihi karo war waxaas la igu sameeyay qof walba waasaa markaan leeyahay robot waxaan ka wadaa qof walba waasaa nobody is dhaqdhaqaajin kara ma leh qof kastana qof baa advantage ka qaadanaya wuxuu ku haystaa heeska barbar oo adduunka oo dhan gaaray Soomaali meel kasto ay joogto Djibouti Somaliland Soomaaliya Soomaalida qurbaha meel walba say wallahi Soomaalida faabka ee kuwii wadanka joogay mid daata haysta midaan daata haystan meel kasta Soomaalida gaaray ee la iswada tuuray ee ogeydeen $1 kama aan samayn waxa laga sameeyay dhar Soomaali ba intay qaadatay dhar soo samaysatay bay ku ceeshtay kama xumi Soomaali Maxamed ha noolaato waxa laga sameeyay baabuurta ciyalka ay ku yihiin kun oo gaari baa laga sameeyay oo China inta saas looga soo daabacay heeskayga lagu soo dhex duuba oo laga sameeyay aniguna $1 heeska kama aan samayn fanaaniinta kaligay iskuma hadlayo fanaaniinta oo dhan baa waxaas lagu sameeyaa every fanaan nimca habi baa kamid ah naku banda mimi sana waxa ujeedada caashaqayga $1 kama samayn Norway bay joogtaa xataa guri ma degana ana indhaga ku soo arkay wallahi billahi taala xataa guri ma degana sharci ma haysato waxa ma haysato marka Soomaaliyay waxaan rabaa inuu inaad la wadaago Journey to Fame wadadii caanimada markaan leeyahay qodxaha lahayd wax kaligii igu saabsan maaha
oo wax qof kasta oo Soomaaliyeed oo fanaana oo entertainment idin sameeyay oo idinka in uu idinla qaybsado waqtiga adag iyo waayaha adag ilaan Soomaaliya dhan kastay ka burburto dhinac walba ka baaba'day dhibaatooyinka fanaaniinta haysta iyo aniga wadadii qodxaha leedo aan soo maray inaan idinkaga sheekeeyo anoo waxba qarinayn liibaan jaamac waa nin saaxiibkaya oo dhalinyaro YouTube kan buu fahmay heesaha sida loo edit gareeyo codka sida loo duubo fanaaniintaas Soomaaliyeed buu irsaaqadiisa ka dhaxlayay cawaale aadan buu ahaa ninkii ugu horeeyay wax ka duubi jiray cawaale aadan markii ay isku dhaceen liibaan oo cawaale yiri ilaan nin balaa baa noo yimid DJ Super liyaado wax fahansan DJ Super waxbuu dadkii fahansiiyay wuxuu yiri war niman yahow dee cawaale aadan intuu tagay buu yiri war buumayaal iyo shaarar iyo magacaaga laga sameyn karaa you have a name sidee adiga intaasoo milyan baa laga sameeyaa adiguna kartoon baa taalgan fadhiya cawaale waa xanaaqayba heesii wixii baa u muuqday tamashleen intaasoo milyan 24 milyan heesii kale intaasoo milyan intaasoo $1 kuma haysto koob shaaha ma shuban karo wuxuu fadhiyay Ottawa aniguna halkan anoo khabar maafisha iska soo galay 13 milyan markii la iga sameeyay DJ Super uu waxaysiistay fanaanadii hooyo DJ Super hadalkayana kale ilaaw DJ Super lacagtayda ii soo dir $1 ma afinayo DJ Super lacagtayda ii soo dir allaha haduu allayahay walaashay Saacdiyo dumaashiday waa ku salaamay Saacdiyoy dumaashi ninka la hadal lacagtayda hay soo diro $1 ma afinayo 13 milyan muddo 6 sano iyo bar ah isku soo dhufdhufta waxa laali waxa ii soo dirtaan waa ka heshiinayna lacagtaydii baan u baahanaa DJ Super heeski barbar baan rabaa inaan kaga sheekeeyo oo dee waa heeska aniga ay caateeyay waa heeski wadaadada badan ay ka soo hadleen oo igu habaareen xataa wadaadada intii masaajidka galeen yiraahdeen yaa ummadda ka qabta ninkan maxaan anigu ummadda la iga qabtaa anigu innocent baan maahay maxaa ummadda la iga qabtaa Soomaalidu haddii aad sheekooyinkan oo kale la wadaagto qofka fanaanka waxay yiraahdaan ma shaqo tagtid oo shaqo soo ma hayno soo idinka shaqaydii ma hayno soo entertainment idin ma samayno soo idin ma heesno soo stresska idin lama qaybsano soo wax allaaliya wixii idin dhibaya heese soo idinkuma daweyno heese soo idinkuma daweyno soo dawo ma waxaan aan idin qorno shaqo ka weyn oo la qaban lahaa miyaa jirta fanaaniintu YouTube ma wada leh dad baa lacag ka sameeya haddii aad taageeri lahaydeen Soomaalida fanaaniinta hadda taageeri lahayd ama public figure-ka oo dhanba hadda taageeri lahaydeen oo YouTube-badooda aad subscribe dhihi lahaydeen lacagta gaaladu sameysay ilma nabi aadan ay YouTube ka sameyso mid la mid ay sameyn lahaayeen fanaaniintu mana arag xumaadeen fanaan qadiin kara male wallaahi oo billaahi oo tallaahi muraayada un baa ka daawataan intay soo labistaan maane fanaan koob shaaha shuban kara ma jiro guuleedsan baan shaaha shuban karin cawaalan shuban karin uu ka baxay cawaale iskalaaji baan shuban karin biilkaygii iskaga tagay hadda shaaha waa shubtaa waa qadeeyaa wadaadu ku biiray qof qadeyn kara wax allaaliya waxa Mareykan hadda jooga aad u jeedaan anaa soo wada arkay wallaahi oo billaahi oo tallaahi baan fanaan qadeyn kara qaarkood kaliya iska istaagaya any time say u socdaan waa wada robot say u socdaan dhug u leeyihiin baa mid walba sadaqad laga soo jiidaya mid waxa la leeyahay geed buu fuulay geed baa la saari rabaa maxaa fanaaniintan stresska ku wada riday waxa ku wada riday they don't have support bulshadii Soomaaliyeed support kama haystaan Justin Bieber iyo Lil Wayne iyo Drake iyo lacag bay sameeyaan waxay ka sameeyaan bulshada ay u heesaan YouTube-kooda ka sameeyaan laakiin Soomaalida ayaga lacag laga soo qaaday fanaaniinta ilaahay baan ku dhartay fanaanka kaliya $1 la ordayo la ilaado heestayda soo baxdo nafta ka wada dhacday fanaaniinti hal mida oo qadeyn kara male hal mida oo haysta male hadda aniga heeskayga barbar hadda dib u soo celisaan oo aad giddigin istuurtaan oo aan anigu inta musical u tunto aan soo galiyo lacagta adduunka ku dhufan lahaa laakiin ma oglidin commentiga waxay u soo qoraysan ma shaqo tagtid oo shaqada ka wanaagsan halkan maxay shaqooyinka adduunka shaqo ma leh adduunka waa u jeedaan warehouse xuna dadku wada aad laba kun ka sameeya marka liibaan jaamacow iyo DJ Super aniga iyo adinku sheekadeenu wali faanoole fara kama qodno way ay
inta dhaafi maayo la soco qaybta afraad anu waxaan ka hadlayo waa wadadii caanimada Journey to Fame waxaanan u istaagayaa qodob baan u dul istaagayaa kaligeena iskuma hadlayee public figure oo dhan iyo qof kasta oo advantage laga qaataan u hadlayaa Somali Justice